بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. gudoomiyaasha jaamacadaha madaxda kale ee jaamacadaha Soomaaliyeed ee walaalaha nahay culumaad diinka aqoon-yahanka xafladda nagala soo qayb galay madaxda jaamacadda Jazeera ee kala duwan ardaydeena sharafta leh ee maanta ay ka qalin jabinaysa jaamacadda waalidiinta ardaydeena qaaliga ah marti sharafta dhammaan mudanayaal iyo marwooyin dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa jaamacadda Jazeera sharaf weyn u ah inaad kala soo qayb gasheen xafladdan qalin jabinta 11aad ee jaamacadda sanadka 2023 ilaa 2024. jaamacadda Jazeera waxaa la furay bishii September 2010 muddo hadda laga joogo 15 sano. waxaa bilaabay aqoon-yahano Soomaaliyeed oo isugu jiray macallimiin iyo takhaatiir uu hogaaminayay gudoomiyaha boorka jaamacadda Dr. Abdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Dr. Riel oo lahaa fikradda asaaska jaamacadda Jazeera. muddadaas waxaa hoggaanka jaamacadda soo daadihiyey labadii gudoomiye ee ugu horreysay Dr. Ibrahim Mohamed Hussein oo 7 sano hogaaminayay jaamacadda iyo gudoomiyihii labaad Professor Salaad Ibrahim Fido oo asaguna 7 sano jaamacadda hogaaminayay. raggaas ayaa usoo dhabar adeegay oo jaamacadda meel fiican soo gaarsiiyey. aniguna meeshaas ayaan jeclahay inaan ka sii wado insha Allah. jaamacadda waxaa lagu bilaabay 3 kuliyadood markay bilaabanaysay: kuliyadda daawada iyo qalliinka, kuliyadda culumta computerka IT, iyo kuliyadda waxbarashada education. ardaydii lagu bilaabay waxay ahayd markaas 195 arday oo kaliya. maantay jaamacadda Jazeera waxay ka kooban tahay 9 kuliyadood. waxaa lagu bilaabay waxaa ku soo biiray kuliyado badan oo ay ka mid yihiin kuliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha, kuliyadda culumta caafimaadka health science, kuliyadda handasada madaniga civil engineering, kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka, iyo kuliyada kale. waxaa dhigta maantay arday gaaraysa ilaa 3,000 arday. waxaana ka howlgala macallimiin iyo shaqaale tiradoodu gaarayso 280 qof. waad garanaysaa markaa arki kartaa baaxadda iyo koritaanka ee jaamacaddu ay samaysay muddadaas 15 sano. jaamacaddu waxay wax ku bilowday markay bilaabanaysay guri yar oo villa ah oo ijaar ah. maantayna waxay degan tahay dhismahan weyn ee maanta joogtaan oo jaamacaddu leedahay. muddadaas 15 sano ah waxaa jaamacadda Jazeera ka qalin jabiyey arday aad u tiro badan oo isugu jira takhaatiir, kalkaaliyayaal, umulisooyin, fayadhowrayaal, injineero, macallimiin, khubarada beeraha iyo xanaanada xoolaha, dhaqaalaha iyo computerka iyo culumta technology. intaas ay soo saartay jaamacadda Jazeera oo maanta ka shaqeeya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. sanadkan jaamacadda Jazeera sida la idin sheegay waxaa ka qalin jabinaya 420 arday oo 58% ay yihiin gabdho, 43% ay wiilal yihiin. jaamacadda Jazeera waxyaalaha ay ku dhaadato oo ay aad iyo aad u qiimeyso waxaa ka mid ah inay number 1 inay ka run sheegto oo aad u adkayso
waxbaridda ardayda iyadoo u dhigta manhaj la jaanqaadi kara kan adduunka laga barto iyadoo si adag u ilaalisa dhammaystirka saacadaha waxbarashada credit hours kuna adag imtixaanada qiimeynta ardayda taasoo looga gol leeyahay in la soo saaro aqoon-yahano bisil oo suuqa shaqada u tartami kara dibaddana aqoonsi ka heli kara qodobka labaad ee jaamacaddu ku dhaadanaysaa waxa weeyaan sida hore loo sheegay dad badan halkaas soo istaagay ay sheegeen akhlaaqda toosan ee ay barto ardaydeeda taasoo ay tusaale wanaagsan ugu yihiin macallimiintooda iyo maamulka jaamacadda jaziira uma dulqaadato dhaqan xumo af xumo hanjabaad iyo xoog sheegasho arday ku sameeyo arday kale ama macallin ku sameeyo arday gacan ka hadalna iska badaa ardaygii ku kaca jaamacadda waa laga saaraa jaamacadda waxaa u degsan xeer anshax code of conduct oo laga saxiixo arday walba oo cusub oo jaamacadda kusoo biira qodobka saddexaad waxa weeyaan jaamacadda jaziira waxaa halku dheg u ah sidii hore loo sheegay ilaa maalintii la bilaabay baro wanaag anshax suuban iyo cilmi waxaa ku dadaalaynaa inaan insha allahu tacaala ka dhabayno halku dheggaas intii karankeena jaamacadda jaziira waxay aqoonsi ka haysataa wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya waxay xubin firfircoon ka tahay midowda jaamacadaha soomaaliyeed ASU waxay xubin ka tahay ururka jaamacadaha Somaliland ku bahoobay waxay xubin ka tahay ururka jaamacadaha adduunka IAU ee saldhigiisu yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxay xubin ka tahay ururka jaamacadaha dalalka Carabta iyo ururka jaamacadaha Afrika ardayda jaamacadda jaziira dhamaysata waxay takhasus ka sameeyaan jaamacadaha ku yaala daafaha adduunka wadamo kala badan oo caalamka ka tirsan oo ay ka mid yihiin kuwa bariga Afrika Masar Malaysia Turkiya Pakistan China Sweden Netherlands iyo Canada taasoo ay muujinayso sida looga aqoonsan yahay shahaadada jaamacadda jaziira iyo tayada waxbaridooda jaamacadda jaziira waxbaridda ka sokow waxay gudataa oo xil iska saartaa mas-uuliyad ah inay bulshadeeda wax ku celiso oo ay samayso social responsibility jaamacadda jaziira waxay sanad walba bixisaa deeqo waxbarasho oo mug leh kuwaas oo ay ku caawiso gaar ahaan ardayda dhammaysata dugsiyada gobollada dalka ardayda ka yimaada qoysaska saboolka ah iyo kuwa agoonta tusaale sanad dugsiyeedkan hadda lagu jiro jaamacadda jaziira waxay deeq waxbarasho u bixisiisay 200 oo arday jaamacaddu waxay leedahay isbitaal ay ku dadka danyarta ah sida barakacyaasha oo kale ku siiso adeeg lacag la'aan ah ama qiimo jaban waxay kaloo leedahay xarun MCH oo lagu daweeyo hooyooyinka iyo carruurta barakacyaasha degan degmada Daynel mar dhowna waxay furaysaa isbitaal cusub oo hadda dhammaan rabo oo lagu daweyn doono dadka danyarta oo laga furayo degmada Garasbaaley ee gobolka Banaadir jaamacaddu waxay si joogto ah uga qayb qaadataa gacanna ka geysataa mashaariicda horumarinta degmada ay ku taalo ee hodan markii loo baahdo haddaba muxuu yahay higsiga jaamacadda jaziira ee mustaqbalka dhow jaamacadda jaziira waxay higsanaysaa inay xoojiso cilmi baarista jaamacadda iyadoo maalgelin iyo dhiirigelin ku samayn doonta ardaydeeda iyo macallimiinteeda si soo saara cilmi baaris xalinaysa mashaakilka haysta dalkeena iyo dadkeena midda labaad jaamacaddu waxay xoojin doontaa
takhasusaatka post graduate ee jaamacadda ay bixiso inay kuwa cusub ku soo darto insha allah. intaa kadib waxaan rabaa inaan iraahdo farriinta jaamacadda maanta ay u gudbinayso ardaydeeda ka qalin jebisay ee maanta suuqa shaqada tegi doona insha allahu tacaala. farriinta jaamacaddu waxay tahay aan farayno ardadeenna iyo annagoo dhan aan isfarayno. farriinta koowaad waa cabsida ilaahay iyo taqwada ilaahay iyo inaan xumaanta ka dhowrsanna isfarayno. waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ku dadaashaan runta, ku dadaashaan ammaanada, oofinta ballanta ilaahay aada la gasheen iyo ballanta ummadda aada la galaysaan. iska ilaaliya calaamadaha munaafiqnimada saddexda ah ee looga digay nabigeena calayhi salaatu wassalaam, taasoo ah been la sheego, ammaanada oo la khiyaano iyo ballanta oo laga baxo. arrimahaas oo maanta aada loo sahladay oo mararka qaarkood dadka qaarkoodna ay aada ugu dhaqmaan. waxaan kula dardaarmayaa ardadeenna inay u naxariistaan dadkooda. naxariis baan kula dardaarmayaa iyo raxmad, inay dadkooda danyartaa iyo nugulkaa ay u sameeyaan. waxaan kula dardaarmayaa cadaalad, inay u sameeyaan dadka oo dhan oo aanay exgelin. waxaan kula dardaarmayaa inay garab istaagaan mar walba qadiyadaha caadilka ah oo xaqa ah. cid kasta oo dulmana ay garab istaagaan. waalidiinta idin soo barbaariyey oo naf iyo maal idin huray ha iloobina daryeelkooda iyo samafalkooda. macallimiintii wax idin bartay ha iloobina ixtiraamkooda iyo qadarintooda ay idinka mudan yihiin, oo afka iyo qalbiga ka dhaha macallinkeed allow kaal, macallinkiis allow kaal. ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii xafladdan quruxda badan soo agaasintay oo ay ka mid yihiin madaalayaasha jaamacadda Jazeera, ugu horeeyo Ustaad Xaamud iyo intii la shaqaysay oo dhan. waxaan u mahadcelinayaa sharikadda Tamaashaad ee iyaduna xaruntan sida qurxisay ee sida fiican u soo abaabushay. abaalkiina ma iloobeena insha allah, abaalkiina beerkaan ka ogsoonahay. جزاكم الله خيرا يا أهل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.